الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد ولا ليال maalinnimadii shalay waxaynu ka soo sheekaynay oo aynu soo marnay taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo alla ka cabsiga iyo mataqaanaaye farajka uu furahayo uu sabab uu u yahay iyo arsaaqda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka quudinayo meel aadan filaynin. weli barnaamijyadii taqwada ayaynu ku jirnaa. qisooyin dhowr ahna waa ay inoo soo socdaan insha allahu tacaala, laakiin mowduuc walba booskiisa iyo meeshiisa ayaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala. walaalayaal, maantase waxaa diiradda inoo saaran haddii allah subxaanahu wa tacaala uu raalli ka noqdo. walaalayaal, qur-aanka imise jeer ayaa lagu sheegay dikriga kurbada xuskeeda imise jeer ayaa lagu xusay. dadku way wada kurbeysan yihiin, dadku way wada dhiban yihiin. walaalayaal, dikriga kurbada qur-aanka waxaa lagu sheegay iyadoo kelmad keliya ah oo keligeed socoto ah oo wasfi kale aan la soconin, hal mar oo keliya. aayaddaasina waxa ay leedahay walaalayaal, qul illaahu yunajiikum minha wamin kulli karbin. kurbadaas loola jeedaa waa fii suurati alancaam, waa aayadda 64 ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku leeyahay. dikriga kurbada isaga oo la xiriiro wasfiga ama sifada kurbada weyn ama shidada weyn ama kurbo weyna ay haysato, wuxuu ku yimid laba meel ayuu qur-aanka kaga yimid. walaalayaal, fastajabnaa lahu fanajaynaahu min alkarbi alcadiim wa ahlahu min alkarbi alcadiim oo suuratu alambiyaa aayadda 76 ah, iyo wanajaynaahu wa ahlahu min alkarbi alcadiim oo fii suurati asaafaat aayadda 76 ah. walaalayaal, aayadda koowaad waxay imaanaysaa bacda qowlihi tacaala, ilaahay markuu yidhi ka gadaal, qul man yunajiikum, waxaad ku tiraahdaa nebi maxamedow, yaa idinka badbaadinayo min dulumaati albarri waalbaxri, mugdiyaasha bannaanka mugdiyaasheeda iyo badda mugdiyaasheeda yaa idinka badbaadinayo, oo tadcuunahu aad baryaysaan tadarucan idinkoo u khushuucsan oo u daliilsan oo dulli u muujinayo, dullinimo isu muujinayo. yaa waayo qofkaasi iyo wakhufyatan axadkaasi waa kuma. walillaahu yunajiikum minha wa min kulli karbin waaye. marka waxaad ku tiraahdaa allah ayaa idinka badbaadinaya subxaanahu wa tacaala. aayadda kale ee ku xogtana waxay tahay aayatu fakul kurb allaha, furashada kurbaday furataa. waxay tahay aayaddaasi, qul huwa alqaadir, nebi maxamedow waxaad tiraahdaa huwa alqaadir, allah subxaanahu wa tacaala keligiisa ayaa ah midka awoodo calaa an yabcata calaykum, inuu dushiina idinku soo diro cadaaban cadaab iyo dhibaato, min fowqikum korkiina, oo min taxti arjulikum ama lugihiina hoostooda, ow yalbisakum ama uu idinku dheho idin hubiyo, shiyaacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin, mataqaanaaye gabal inuu mataqaanaa inta idinka dhigo uu qaarkiina qaar kale dhibkiisa u dhadhaysiiyaa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodaa. walaalayaal, ishaaratun waadixa, arrintaasi waxay ishaaro waadixa ay u tahay anna kaashifa alhammi waalkurab, kurbooyinka iyo murugada badan feedo inuu yahay allah subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, xasan albasri wuxuu yidhi fii qowligii markuu ka hadlayay, qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fowqikum, wuxuu yidhi haadihi lilmushrikiina, tan gaalada iskale, mushrikiinta ayaa loola jeedaa, calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fowqikum, tahdiid iyo goodin ayaa waxaa lagu samaynayaa gaalada oo la leeyahay alla wuu awoodaa inuu korka cadaab idinka keeno ama dhulka uu idinla jaro, wuu awoodaa ayuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala. amaa qowlka dhahaayo fanajaynaahu wa ahlahu min alkarbi alcadiim, taasina waxay ishaare iyo tilmaan ay farta ay ku fiiqaysaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u gargaaray nebigiisa nuux ahaa calayhi salaam, qoomkiisii
950 سنة قيلناي فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما 10 سنة أو 50 سنة لمن أيو قيلناي نبي نوح أو أي أجيبي وايين أو أي دعوة إلهي أي أقبل وايين ولا ليال markaasuu ilaahay fanajjaynaahu waanu korinay oonu ka badbaadinay isaga keligiisa maahan iyo wa ahlahu ehelkiisa min alkarbi alcadiim kurbadii weyneed murugadii weyneed ayaa nebi nuux ka badbaadinay ayuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala walaalayaal fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir oo 50 sano markuu naadinayo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryay oo muxuu yidhi annii maqluubun ilaahu aniga waa la iga adkaaday ويسديب النبي نوح عليه السلام وحجر الله أنك والله يقعد إبدباده مركز إلهي فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فأوحى لذا التعقيب مركب معناها ولا أجيب الله قوضها معناها فكان النجاة من الكرب نجاة أما بدباده وحي أهد إن إله سبحانه وتعالى كربه وكبدباده تواصل إلهي وكسفه سبحانه وتعالى بالكرب العظيم أو بالكرب العظيم كربدي وينه أي إله سبحانه وتعالى كبدباده أو أهلك وحو إله سبحانه وتعالى هلاغي قومه قوم كيس أيها هلاغي الذين كفروا كواسوا قالوا به أي بالله قالوا أما به بالرسول قالوا وبالله عز وجل نبي نوح قالوا بين إله سبحانه وتعالى قالوا بين آياتك لإله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم إذن وحي خاص كتاي نوح إهلكيسا أي خاص كتاي إهلكيسا مركي الولاية وحاجر ويلكيسا أو كلا مؤسن أهان إهلكيسا كوي جنة قلي إله سبحانه وتعالى وحوليه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح نبي نوح مركي ودونت الراعي أو ويلكيسا وكيري ويلكي نيو ويلكي جيو إلى صورة دونت عن كالي مركز يجير ما يبور ماشي أنا كله منايا أنيجا مركز يجير والله لا عاصمة اليوم من أمر الله ما الله بحث ذا أمر الله قد maanta amarka ilaahay male wuu dhacay ay kaalay markaasuu markii dambana uu qeeleyna uu yiri ilaahu wiilkeygi markii uu yirina ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri yaa nuux innahu laysa min ahlika nuuxu inan kan wiilkaaga maaha waa wiilkiisi laakiin ilaahay ayaa u qadiray subhanahu wa ta'ala inuu ka mid noqdo gaaladii baabaadii ku halaagsantay مرك ولا ليال إله سبحانه وتعالى مركي أوشيغي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وحان نور واقع أو نادي نبي نوح فلنعم المجيبون هو أجيب إلهي سجع سكود سبحانه وتعالى أيا النعمه أي أسقنات أيوليه إله سبحانه وتعالى مركز حكوليه إنه فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده وفضل إلهي عد دونا وأوصي الله سبحانه وتعالى ولا ليال كربضو موضوع ذي وفر بدنتهاي إن شاء الله تعالى قصوين أيان أكين دونا إن شاء الله واحد تلو الأخرى مد كدم بيصب أيان مالو والبهلكم كسو كوبي دونا كلمة جابان وكوبا أيان كسو كوبي دونا إن شاء الله تعالى برنامج جهرو وحجر قبيل إنها ما نهل ما من إن شاء الله تعالى وان ودي دونا سيرة ودي دونا كشيكين أصحابا ودي دونا تابعين تأيدك ونكسن كشيكين تودا ودي دونا إن شاء الله تعالى ولا ليال أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.